بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعة مباركة وهبين جمعة وعيدتك مسلمين تودي أرجروبيان عيد تطبعتك وحندوني أين المناسبة نقف هذه استجودهان شعبنا الصومالية إن وجوههم باليوم إلى جمعة مبارك. مرات وحن ربا إن أنكه الله أرنت حولها ومالمهم بتاجنيد ها تمركبك كحيرنا مقالة جدة بقرطوية السعودية العربية أما ها تو حولها وقت جن حجك وبحايا دلك السعودية دولوينها الصوماليات كان ببحايا أو هجناع السوتشرينا ومدة الصوماليات هي الدولة بقرطوية السعودية العربية كده هي مدلر إنتان نجارو هالين حالة مركبك iyo sida alxamdulillaah rabbil caalamiin ay hadda ku soo dhamaatay iyo doorka dawladda federaalka Soomaaliya oo hormuud u yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka ciyaartay iyo xoolaha kale oo milyan iyo 200 ama ka badan ba ah ka dhoofaya dhulka Soomaalida. Waxaan doonayaa inaan waxoogaa dib inoo xasuusiyo Soomaaliya in badan bay xiriir ganacsi oo xagga xoolaha la lahayd Sacuudi Arabiya waqti mar hore leenaga xiriiray oo la joojiyay inxisaar ama xayiraad la saaray xoolaha Soomaalida ilaahay fadligiisa inoo furmay. haddana sanadkii 2017 waxa dhacday markab sidee 720,000 oo neef in hal neef oo kamid ah laga helay xanuun dekad kamid ah dekadaha Soomaaliya markabkaasi uu ka gooshay dib loo soo celiyay 2017 laga bilaabo culays ayaa ka imanayay dhinaca Sacuudi Arabiya xagga xoolaha dhoofintiisa ah waxay ogolaadeen kaliya labada xaj 17 iyo 18 kadib waxa soo baxay kana wada warqabnay in wasiirka beeraha biyaha iyo deegaanka ee Sacuudigu uu saxaafaduna soo qortay uu ka hadlay in iyagoo daneynaya sixada dadkooda iyo ummadda kale oo ku dhaqan dalkooda mas'uulka ay ka yihiin ayna qaadan doonin xoolaha Soomaalida. Arrintaasi qayladaan ayay keentay dawladda federaalka Soomaaliya annagoo dabagal ku sameynay dabana soconna booqashooyinkii rasmiga ah ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Febraayo 16 ilaa 22 waxaan hogaamiyay wafdi dawladda federaalka ka socda oo ku jiro wasiirka maaliyadda wasiirka xanaanada xoolaha iyo mas'uuliyiin kale oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ka socday ujeedadeeduna ahayd iskaashiga dhaqaale iyo ganacsi iyo taariikhda saaxiibtinimo ee soo jireenka ee dalweynaha Sacuudiga la lahayn. waxaanu shirarkayagii ku bilownay dalka Sacuudiga wasaaradda beeraha oo qaabilsan xoolaha. ujeedada wada hadalkayaguna waxay ahayd oo aan minutiskii hadal qoraalkii ka soo baxay aan halkan ku hayo kow inaan dawladda Sacuudiga u bandhigno in xoolaha Soomaalida la furo guud ahaanba 6 milyan ilaa 5 milyan ayaa sanadkii loo dhoofin karaa 5 ilaa 6 milyan inta u dhaxaysa. laba waqtigan xajka oo soo dhowna isaga aanba la gelinin muran uu bilaabmo dood dheer baanu kala kulannay aakhirkii waxa ay ku soo biyo shubatay markii aan wasiirka arrimaha dibadda iyo wasaaradaha kala duwan iyo wasaaradda beeraha iyo biyaha iyo deegaanka ee Sacuudi Arabiya la kulannay wasiiradooda iyo mas'uuliyiintoodaba in guddi farsamo oo labada dhinac ah loo magacaabo focal point ama xiriiriyayaal guddida farsamada iyo dhakhaatiirta ahi ay ka wada hadlaan ka wada shaqeeyaan lagana shaqeeyo sidii shuruudaha dhinaca caafimaadka u badan ay u fulin lahaayeen dhinaca Soomaaliya oo xoolihii ka imanayo waqti ku siman May April ilaa dabayaaqadii xiriirka dheer waxa Sacuudiga ay soo saareen 19 shardi. waxaanu ka wada hadalnay markii hore 9 shay oo dhinaca caafimaadka u badnaa oo lagu dhoofin karo xoolaha. waxay soo saareen 19 shardi oo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee faahfaahinta u baahan ee ay ku kantaroolayaan in la sameeyo ay ku jirto waxa kamid ah oo qodobada shuruudaha ah sida dalalka kale caalamkaba ay ula dhaqmaan in ay helaan hal shahaadad oo ka timaada dalka dawladda federaalka Soomaaliya marka
baaritaanka caafimaad iyo dhinac walba la eego ee ay soo dhammaystirmaan dowladda Soomaaliduna ay regulation u samayso ay hagto maxsharada ay soo marayaan iyo caafimaadkooda iyo baaristooda intaba si xooluhu u furmaan waxa qasab ah in shuruud kasta oo shardi u ah dowladda Sacuudi Arabiya oo xoolaha loogu dhoofin karo la jeegareeyo in ay suurto gashay waxa dhacday 12 bisha July in markab siday xoolaha 20,000 oo neef ahi uu dekada Jidda ku xirtay anagu waxaanu markaa ku war helnay markabkaas oo aan kasoo dokumentiyada kale oo sito dowladda federaalka wax document ah ka sidanin waan ka howlgalay anigu shakhsi ahaan madaxweynuhuna door hogaamineed oo weyn ayuu ku lahaa in markabkaas la sii daayo waqtigana exemption loo sameeyo xoolaha kale ee ka dhoofaya dekadaha Berbera iyo Boosaaso ay iyaguna hadda tijaarta iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay ku tala galeen waqtigan xajka in ay dhoofiyaan ay sidoodii u socdaan madaxweynuhu amar buuxa ayuu ka bixiyay qoraal buu ka sameeyay markii la diray dokumentiyadaasna ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda beeraha iyo dhamaan ay ka soo dhamaatay alxamdulillah rabbil caalamiin maanta oo aynu joogno oo ah khamiis subaxnimadii ayaa wasaaradda beeraha iyo wasaaradda dawladda boqortooyada Sacuudigu ay soo saareen qaraar iyagoo tix raacaya qoraalkii rasmiga ahaa ee ka soo baxay dowladda federaalka in ay dhakhaatiir saaraan markabkii in xoolihii la eego caafimaadkooda la jeegareeyo lana dejiyo ganacsiga kale ee xoolaha soo rarnaa ee ka soo ambabaxayay Berbera iyo dekadaha kalena sidoodii ay u socdaan taasi waxay ku timid Ilaahay fadligiisa iyo dadaalka iyo amarka iyo hogaaminta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo go'aan ku qaatay qaraarna ku qaatay inaan ganacsigu marnaba aanu gali karin sida dadka qaar u dhigayaan iyo isdhexgalka bulshooyinka Soomaaliyeed aanu siyaasad galahayn ay danta koowaad tahay in la eego maslaxadda caamka ah la eego danta ganacsatada Soomaaliyeed lana eego danta bahweynta iyo danyarta Soomaaliyeed iyo islaanta ama odayga reer miyiga ah ee halka neef soo dhoofsaday masaariif iyo nolol ka raadinaya taa iyadoo aan ka duulayno madaxweynuhu wuxuu nagu amray in si buuxda looga hawlgalo sidii loo sii deyn lahaa markabka in si buuxda looga hawlgalo ganacsiga kale ee xoolaha ee ka furmaya Berbera ka socda in isaguna aanu xilligan xajka wax arqaladaya markastaba gelin laakiin wixii ku saabsan maxaa xajka kadib laga shaqeyn karaa la wada qaban karaa dawladda Sacuudiga waxaan ku heshiinay in aanu sameeyno commission dhaqaale ama joint economic commission oo dhinacyada beeraha xoolaha dhaqaalaha ganacsiga warshadleyda wax soo saarka ka kooban oo labada dhinac ah gudidaas ama commissionkaas labada dhinac ka koobanina ay qiimeeyaan dabana galaan maxaa dalka soo dhoofaya maxaa dalka kale uu dalka u dhoofinaya waajibaadka labada dal saaran loo baahan yahay in la isweydaarsadaa maxay tahay waxa kale oo iyaduna la socota waqtiga udxada ama xajka oo boqortooyada Sacuudigu si gaar ah iyadana ay xil weyn iskaga saarto door weyn ay ku leedahay in xujaajta muslimiinta caalamku ay helaan hadiga arrimahaas oo dhan iyadoo aan ka shaqeynayno waxa Ilaahay idinkiisa suurtoobay in maanta caawa markabkiina si fiican looga hawlgalay oo dhamaaday isfahamkaasi heshiiska dawladda federaalka Soomaaliya iyo boqortooyada Sacuudiga u dhaxeeyana oo ku soo gabagaboobay ganacsiga kale xooluhuna uu socon doono